waxaan rabaa inaan sameeyo oo in badan maskaxdeeda ka guuxaysa waxay ahayd in maalin uun hadduu ilaahay yidhaahdo aan waddankoo dhan amigeyga Soomaaliyeed aan soo maro maanta waxaan joogaa dhaxbartanka Soomaaliya ama dhaxbartanka geega Soomaaliyeed waxaan joogaa gobol 46,128 kilomitir square badkiisa uu yahay inta badan wuxuu xuduud la leeyahay 3 gobol iyo dowlad deegaanka gobolkaas waxaa la yiraahdaa Galgaduud gobolkaas Galgaduud aan joogaa maanta aan nila hadlayo waxaana ii qorsheysan hadduu ilaahay yiraahdo in aan maxaa la yiraahdaa aan soo maray inta badan gobolo badan oo waddanka amigeyga Soomaaliyeed marka gobolkan wuxuu xuduud la leeyahay Hiiraan Shabeellada Dhexe Mudug sidoo kale iyo dowlad deegaanka Soomaalida xagga barina badda Indian Ocean ka saaran marka waxaan rabaa waxay tahay gobolkan inaan ka bilaabo safarkeyga adventure-ka anigoo raba inaan ku tago gobolo badan iyo magaalooyin badan oo kamid ah geega Soomaaliyeed anigoo rabo inaan rumeeyo riyada aan leeyahay oo ah magaalo walba ama gobol walba oo Soomaaliyeed inaan cagta saaro riyadaasna adinkana ay ila rumaysaan si yani ani iyo adinka aan iskula safarno wax badan aan isla soo baran riyadeena waxaan rabaa inaan rumeeyo oo aan ka bilaabo gobolkan dhaxbartankan joogno waa dhaxbartanka Soomaaliyeed marka waxaan rabaa calooshaas oo aan rabno maanta inaan ka bilaawno inaan ku socono anagoo rabno waxyaabo badan oo nolosheena inaan iska bedelno marka ku soo dhawaada Galgaduud ku soo dhawaada magaalada Dhuusmareeb oo aan rabno inaan wax badan ka ogaano aan ka sii gudbi doono magaalada labaadna ugu gudbi doono waxaan isku dayaynaa gobol walba markaan tagno hadduu ilaahay yiraahdo ugu yaraan 2 magaalo oo gobolkaas ah inaan ka tagno iyo waxyaabaha gobolkaas uga duwan yahay gobolada kale aan hore u soo aragnay marka safar waxaan isku rajaynaynaa aniga iyo adinka Kira kau amaran ni? Main deh, ada main ni. halkan waa garoonka ugu weyn gobolka Galgaduud sidoo kalena waxaa lagu talagalay garoomada ugu waaweyn galmudug leego hadda ciyaar live ka socoto isla magaalada gudaheeda laakiin nidaamka garoonka waxa uu daxawaa joogiisina oo okay yahay oo habaysan yahay space weyn iyo weyn oo model ku fadhiyo ma sha Allah marka soomeesha lagu talagalay dadka inay fariistaan meeshaan waa meel qayb ka iskaga bedelo sidoo kalena qayb kamid ah waxa degan waa biyaha marka dhul la ilaaliyo inay yihiin oo ujeedaa waxa dareemay dhul ilaaliyo inuu yahay ma sha Allah aad u qurux badan yahay garoon aad u qurux badan dadka ka baxayna oo ujeedin ma sha Allah wali ma isku dayayna inaan ku ciyaarto meeshaan مرة عياري لو كلاتي لو مرة عيد تمام مركز نوع عيد ترى مركز وان عصبة مركز عياري جدا هذا لو سنة جدي أنت ما تعتمد وان اسمه الجران نظام كيس كمان سيدو كلية مرتين مرينا بحوجا كسر معطى جران كسر لو كتير ورعدوا ciyaaryahan meeshaan ay booteenay laakiin ana aqoonin inay run noqon doonto inay been noqon doonto ya way halkaan ugu jeednaa aniga ahaanteyda waa markii labaad aan garoonkaan imaado muuqaalkan haddeerna waa muuqaalkii labaad aan ka duubay garoonka marka laga yaabaa mar uun inay
إن إيه مهد من دون تان معايا المقالك اللي بانت واحد كامل هورا ترى أول مستي السنة ذاك السوق ريت كم وقت كل واحد هو يسبدل أنا أقول حاجة بدو مثل الفول سيدي ذكر واسك عادي واحد بروبلم ما حتى كان مرحبا واحد الشيء على الشدة قلب كي مركي لقاره ويجي مادان سي وقت وقتها شو يقول بيستان أكسجين روح بدنا يا أخي سيدي وينين سيدي ذكر واحد كذا هذا ناس قلب كي بالشدة من يرتا من اللي قفوا هذا دباتوينكا يا واحد طبعا عند يرتا isku geystaan laakiin bedelkeeda la helo saaxiibtinimo iyo maxaa la yiraahdaa isdhexgal bulsho ee deegaanka waana wax muhiim ah in la dhiirigeliyo waqti badan lagu bixiyo marka anaga waa dhiirigelinaynaa dhalinyartana sidoo kale ayagana aad iyo aad ugu faraxsan yihiin markaad aragtid nidaamka iyo qaabka wax u socdaan maasha allah waa yaan dhihi سحر لا يحفظوا ذا وانسو سعدا كودي واحنا وانسدا لابدي وانسو سعدا كودي واحنا وانسدا لابدي سمير يلولي سحر لا يحفظوا ذا